السلام عليكم maanta waxaan idin soo tabinayaa amba aan idin soo gudbinayaa magaaladii luntay hadaba magaaladan waxa lagu magacaabi jiray Maya magaaladan waxa loo tixgelin jiray mid ka mid ah ilbaxnimooyinka amba horumarkii soo maray qaaradda Amerika hadaba ka hor intii ayna magaaladan baabi'in amba magaaladan ayna isku rogman amba magaaladan laga waayin adduunka amba dadkeegu ayna baabi'in magaaladan waxa ka jira horumar aad u badan magaaladan aad ayay u horumarsanayd hadaba magaalada maxaa burburiyay maxaase inay lunto amba mar dambe ay cilmi baarayaashu ay ogaadaan maxaa sababay barnaamijkeena maanta ayaad ku ogaan doontaa isla socod wanaagsan hadaba horaantii qarnigii 1800 BC-gii magaaladan waxa ka biloomay amba la dejiyay in tuulooyin yar la asaaso oo waliba laga dhex dhiso Mexico iyo bartamaha Amerika hadaba xadaarada Maya waxay kor u kacsamaysay oo amba xadaarnimadeedu kor u qaadmatay sanadadii u dhaxeeyay 250 ilaa 900 AD-gii inta u dhaxaysay bay horumar aad u ballaaran ay ku talaabsatay cilmi baarayaashuna waxay ku tilmaameen classic period waqtigii caalamiga ah bay ku tilmaameen hadaba in ka badan 40 magaalo amba in ka ku dhow 40 magaalo ayaa laga hirgeliyay magaalada Maya hadaba gobolada Maya oo dhan waxa ku noolaa tiro dad gaaraysa 50,000 oo qof hadaba magaalada Maya waxay lahayd dhismayaal aad u qurux badan oo laga farsameeyay amba laga dhisay dhagaxaan dhismayaashana waxa ka mid ah madbacyo amba meelahan waxay ku caabudaan sidoo kale ahraam taariikhi ahayo oo si cajiib ah loo dhisay sidoo kale waxay sameeysan jireen oo aad u dhisan jireen waxyaabaha asnaamta ay caabudi jireen ay aad u dhisan jireen oo waxan ay asnaamta waa nacuudu billah waxaan iyaga dhisan jiray oo dhagxaanta ay waxaasi ka sameeysan jireen hadaba magaaladan Maya waxa ilfur amba ilsheeda dhaqaale ay ku tiirsanayd waa beeraha waliba dalaga loo yaqaan hardwoodka ay aad ugu tiirsanayd hadaba magaalada Maya waxay horumar badan ka sameysay dhanka xisaabaadka iyo xidigiska hadaba waxay hindistay fikradda ah zero ay sameeyeen nidaam kale waxay sameeyeen kalendarku badankaana waxay ku saleyn jireen xilliyada dalagyada u soo go'ayaan iyo sidoo kale waxay ku saleyn jireen qorraxda oo muddo badan bayna isticmaalayeen runaantii sidoo kale waxay sameeyeen oo khubradii wax baadhisay ay la yaabeen wax loo yaqaan Mesoamerica oo ay laga sameeyay dhoobo kale ka sameeyeen markii magaaladu burburtay markaa waxaan la helay oo wax dhismayaal burburay baana laga dhaxelay marka waxyaabo noocaas oo kale aad u mashqado qurux badan oo mar dayixii lagu tilmaamay mar cadeedii waxyaabo noocaas oo kalena way ikhtiraaceen runtii hadaba waxa su'aala magaaladan sidaas aadka u qaaliga ahayd ee soo martay adduunka maxaa burburiyay hadaba magaaladan Maya waxa burburiyay iska hor imaadeen dadkii ku noolaa beeraleyda oo dawladda ayaa waxay adeegsanaysay amba gobolkan magaalada Maya ay waxay adeegsanaysay xoog bay ku hayseen markaad gobol yar oo kale waxa jira lagu magacaabo Tikal lagu magacaabo oo hoos imanayay magaalada Maya oo dadka ku noolaa oo dhan magaalada Maya ay xoog ku haysatay ku dhawaad ilaa 100 sanadood ku dhawaad adoo abadina ka badnayba inahaas ay xoog iyo qasab ku haysatay hadaba dhamaadka sanadku markuu ahaa 900 AD magaaladii Maya gibi ahaan waxa soo wajahay burbur aad u xoogan burburkaana waxa keenay dagaaladii isku hor imaadeen dadkii meesha ku noolaa goboladan Maya ku noolaa ay isku hor imaadeen sidoo kalena waxa dhacay masiibooyin natural vulkanooyin baa qarxay sidoo kalena dagaaladii waxay sababeen in beerihii amba meelihii dalagyadu ay runtii ka baxaan meesha oo abaar baa sanbaas ku soo noqnoqotay taasina magaaladii hawadii ka sii saartay hadaba cilmi baarayaasha amba dadkan soo ogaaday magaalada waxay leeyihiin maalinba waxaan helaynaa arrin ku saabsan magaaladan jiritaankeedii intii jirtay markaa caddayn cusub ay kolba helayaan hadaba dadkii Maya ilbaxnimada hore ku noolaa maanta nool wax lagu qiyaasaa ilaa
adu farcoogii kale wax lagu qiyaasay ilaa 7 milyan inay maanta adduunka ku nool yihiin marka 7 milyanna waxay la qabsan lahaayeen nidaamkan casriga iyo waxyaabahan marka badanka wax iska sameeyaan xalfadihii awooyaashood ay qaban jireen amba dhaqamadii beeraleydeedu u lahaayeen ayay iska sameeyaan runtii waxyaabahaasay isku madadaaliyaan أتبقى تاريخ مقالة سوكو بلهين موضوعين مانتا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.